الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan salaamayna warbaahinta guud ahaan TV-da iyo jaraa'idka maanta waxaan isku nimid arrin beriyaha horena looga hadlay imkana aynu ka hadli doono oo ah caburinta dawladda Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo ay ku hayso warbaahinta oo kaliya kuma hayso waxay ku haysaa hantidii dadku lahaa bay halis ku haysaa ee shakhsiga ahaa waxaynu ogeyn hore markaynu ka hadalno warbaahintu marna waa mihnad waa shaqo oo waa meherad marna waxa weeyaan wax ummaddu ay wada leedahay waa warbaahin codka qofka caburintiisa oo kaliya maaha waxay dawladdu ku leedahay hantidii ay lahaayeen dadkaasi mihnada leh shaqada leh ayaa iyana ay dawladdu si sharci darro ula wareegtaa waxaynu ogeyn hubaal wixii ku dhacay waynu ogeyn markii hore ka horreeyay habeen iyagoo habeenada kamid iyagoo shaqaysanaya oo fadhiya oo halkoodii fadhiya ayaa loo soo weeraray niman markii dambe noqday inay ciidamada ka tirsanaayeen ayaa weeraray rasaas bay ku rideen ilaah baa seejiyey gacan bay ula tageen gacan baa ay bulbula dhaceen waynu ogeyn ninkii ka ahaa tifatira in nabar ku gaaro gacan ka jabtay waa ogeydeen ninkii way qabteen waxay u soo gudbiyeen booliiska muddo markii la hayay waa ogeydeen waa la sii daayay iyadoo aan ay qaaba ninkii la marin dadku ka galay ma ahayd qofku qarankan uu ka galay qofku markuu cid wax yeelo Allahumma salli ala Muhammad waxaynu ogeyn hubaal ilaa maanta inay xidhantay ogeyn ilaa hadda inay xidhantay maalin dhow wuxuu ugu yidhi inaan ka mid ah inamadii ka shaqayn jiray waxaan leenahay war haddaba kiradii uu naga bixiyo kiradii baa lanoo haystaa waxa raacda oo aynu maalin dhamaqnaynay haatuf oo iyana laga qaaday sida la sheegayo laysankiina laga qaaday sharcigaas meel uu ka iman karan maayo laga hantida ummadda laga qaadayo iyadiina la xidhay marka waxaan leenahay xukuumadda berigii hore mucaaradka ahayn kulmiyo wada ahayn xaaju Yuusuf Cabdi Goobe bari xidhay dawladda xidhay riyaale aad buu madaxweynuhu ugu ololeeyay sharci darro ku tilmaamay maanta sharciga halka keenay ayaa su'aala ku dheeraan ma yarqad baa iga dambeeya laakiin waxaan leenahay hal la ixtiraamo codka qofka hal la ixtiraamo hantida ummadda shariidada iyo shariidii ka horreeyay keebala shirayeen TV-da la joojiyay oo universal kulli aan ka xasuusnahay ayaa jira hebel buu wax ka sheegay qofku mas'uul haduu yahay waxa laga sheegay gurigiisa iyo shakhsiyadiisa wax laga sheegay waxa laga sheegay ummadda iyo waxa uu hawsho u hayo taana xaq baa loo leeyahay laga sheego marka waxaan ku soo koobayaa ha loo celiyo dadka xaqoodii iyo hantidoodii ha loo celiyo shaqadoodina la soo dadku shaqa la'aan baynu ka cabanaynaa 7 qof baa ka shaqeynaya dhaxal gudla 10 qof baa ka shaqeynaya haad foo kale qoraa ashmaan iyo wax la xiriira ilaa madbacada ilaa inankii yara iibinayay inta soo dhan shaqadoodii dawladdu way joojisay shaqa la'aanna waynu ka cabanaynaa ka yara meel xorriyaystaadii dawladdu ka qabato wixii soo galanay iyagu meel ay mariyeen garan weyna waa ay hadaro marka waxaan uga baxay hadalka inta kale saaxiibaday. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.